الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، إلهي فضله تبارك وتعالى وحين كسر دواني وإن كسر آدن وأن قابل صنهاي tobankii bishii Ramadaan u dambeysay oo inaga xigto laba habeen kaliya. waa bisha dhuuxeedii waa bisha khulaasadeedii waa meeshii ugu muhiimsanayd bisha habeenadeeda iyo waqtiyadeeda kala duwan. waa meeshii nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi uu dadaalka siyaadada ku bixin jiray, laana waxa way tobankan dambe bisha inteeda kale way ka fadli badan yihiin. wanaaga iyo khayrka la sameeyana la mid ma aha waqtiyada kale, xataa bisha inteeda kale la mid ma aha. waa waqtigii marka dadka ahlul khayrka ay tartami lahaayeen, waa waqtigii ganacsatada aakhiro ay sahay qaadan lahaayeen oo ay faa'iido raadin lahaayeen. waa waqtigii aan juhdiga iyo dadaalka gelin lahayn. waxaa ku filan tobanka dambe fadli waxaa ugu filan in ay ku jirto habeenka laylatul qadriga. habeenkaasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka uu ku sheegay fadaa'il fara badan. quraanka kariimka buu ilaahay soo dejiyay oo uu dooray inuu soo dejiyo. habeenkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay camalka la sameeyo inuu ka fadli badan yahay 1000 bilood oo ayadu ayna ku jirin 83 sano iyo ziyaado waay. habeenkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay habeen barakadeed iyo khayrkeedu badan yahay, layla mubaaraka. wuxuu ku tilmaamay arin kasta in la kala saaro oo ay culimadu ku fasireen sanadkaas soo socda waxyaalaha dhacaya diiwaanka weyn ee looxul mahfuudka inta laga soo qaadaa la soo dejiyaa oo la soo fasliyaa. malaa'igtaasi habeenada kale ka badan u soo degayso malakul jibriil la jiro. waa habeen nabada buu ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaa waagu ka baryeeyo. habeenkaasi nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuu baadi goobay, bisho dhan buu ka baadi goobay. tobanka horuu nabigu i'tikaafay isagoo raadinaya habeenkaas. tobanka dhexuu haddana i'tikaafay isagoo raadinaya. markaas waxa lagu yiri tobanka dambe ay ku jirtaa. tobanka dambu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka ka raadiyay halka ku dadaala, gaar ahaan habeenada tirada isdhaafka ka raadiyo ku dadaala buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. gaar ahaan habeenka 23aad buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam. laakiin culimadu sayleeyeen ahadiista ku soo aroortay si la isu waafajiyo waxay leeyihiin macnaha saxdii waxa weeye in sanadba ilaahay meel gelinayo, meel ay ku jirto ma taqaanid marka. saas daradeed baa nabigeena laga qariyay sallallahu alayhi wasallam si ay umadu khayrka u badsato, habeen kastana u filato inay laylatul qadri tahay oo markaas ay taacada u badsadaan. nabiga waa loo sheegay kadibna waa laga qariyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. habeenkaasi tobankan dambe ku jira. tobanka dambe waa gabagabadii iyo khatimkii iyo sagootiskii bisha way. waa sagootiskii nabigeennuna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam acmaashu waa khatimka waay. maxaad ku khatimtay bishii haddaad soo dadaashay? maxaad ku gabagabaysay oo kuugu dambeeyay? cimrigaaga haddaad dadaashay maxaa kuugu dambeeyay? cimrigu muxuu u dambeeyay? maxaa amal kuugu dambeeyay muxuu ahaa? al-umuur bil khawaatiib. khaatumadu waa muhim. sidaas daradeed inuu dadaalkeenu bato, juhdigeenu bato, inagoo nabigeena maxamed ku dayanayna sallallahu alayhi wa alihi wasallam. kaana yajtahidu fi al-ashr al-awaakhir ma la yajtahidu fi ghayriha. tobankan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin habeena kale iyo waqtiyo kale toona. wala sifa faahiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam acmaashu sameyn jiray. wixii uu soo waday acmaal khayrana wuu si laban laabi jiro, wuu siyaadin jiray. laakiin si gooniya waxa farta loogu fiiqay xadiidka saxiixaynka ku yimid xadiis Aisha waxay leedahay nabigu sallallahu alayhi wasallam tobanka dambe Ramadaan haday soo galaan nabigu sallallahu alayhi wasallam ahya laylahu habeenkiisa waa nooleyn jiray. wa ayqadha ahlahu ehelkiisana waa toosin jiray. wa shadda mi'zarahu guntigana waa adkaysan jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. habeenkiisu nooleyn jiray بمعنى إله عبادتي سو هبينك انتي سبدان كو قادن جري النبي صلى الله عليه وسلم. waxay culimadu leeyihiin
cibaado oo dhan waa nolol waqtigay nolol u tahay oo zamankiibay nolol u tahay oo makaankiibay nolol u tahay oo quluubtay nolol u tahay cibaadada iyo dikrigu waa nolol la'aantiina waa geeri saas daraaddeed baa nabigeenu sal alla alay wasalam xadiidka fii saxiixi muslim wuxuu yidhi guri ilaahay lagu xusay iyo guri ilaahay aan lagu xusini waxay ka dhigan yihiin meyd iyo noole oo kale bakti iyo mid nool oo kale qur-aankana waa ka ilaahay noogu sheegay dadka qalbigooda iimaanka iyo dikriga ilaahay uu ku jiro ilaahay wuxuu ku tilmaamay dad nool gaalada iyo munaafiqiinta qalbigooda uu dikriga iimaanku ka maqan yahayna bakti buu ilaahay ku tilmaamay wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaad sidaas daraaddeed nolosha qalbiga iyo nolosheeda rasmiga sideedaba waxa weeye waa ilaahay daacadiisa iyo cibaadada iyo iimaanka iyo khayrka nolol ah habeenkiisuu noolan jiray nabigu sal alla alay wasalam waxay leeyihin culimmadu lagama qaadanayo inuu habeenka o dhan soo jeedi jiray mana diidayso wakhti kooban inuu ruuxu nasto oo yaro seexdo maxaa yeele caaisha nebiga waxay ka warinaysaa kamaa fii sunan الnisaa'i waxay leedahay nebigu sal alla alay wasalam weligay ma arkin asagoo qur-aanka hal habeen ku wada akhriyey mana arkin bay tihi isagoo habeen dhan soo jeeday ilaa waagu ka baryey ma arkin bay tihi asagoo bil kaamila soomay oon ramadaan ahayn weligay ma arkin bay tihi oo yaa ka khabiirsan oo uga xogaalsan nebi maxamed cibaadadiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faqiihadda umulmu'miniina caaisha radia allahu tacaala canhuma iyo ummahaatu lmu'miniin lianna nebiga cibaadaadkiisa nawaafishiisa ayaga cid uga xogogaalsanaa ma jirin saas daraaddeed waxay leedahay habeen dhan nebigu ma soo jeedi jirin yacni wax yar buu yaro nasan jiray kadibna cibaadada ilaahay buu u istaagi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axyaa leyla habeenka marka waa in la nooleeyo wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa toosin jiray nebigu sal alla alay wasalam dabeecad sideedaba waxaa u ahayd sanadka intiisa kaleba markuu nebigu salaada habeenkii tukanayo inuu reerihiisa kiciyo xaasaska kiciyo dadka guriga jooga kiciyo si ayaguna fursadda iyo jaaniska uga faa'iidaystaan saxiixu lbukhaari waxaa ku sugan nebigu sal alla alay wasalam habeenada ka mida hurdada ka soo booday isagoo argagaxsan nebigu sal alla alay wasalam markaasuu wuxu uhi subxaana allah caawa maxaa fitan la soo dejiyey maxaa khazaa'in la soo dejiyey iyo khasnado war dumarka qololka jiifa yaa kiciya man yuuqidu sawaaxiba alxujuraat dumarka qololka jiifa yaa kiciya badanaa haweeney adduunka markay joogto maro qabta aakharana qaawan buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal wuxuu yidhi allah u naxariisto nin habeenkii kacay oo tukaday oo xaaskiisa kiciyey oo hadday kici weyday biyo ku saydhay allah u naxariisto haweeney tukatay habeenkii kacday tukatay ninkeeda kicisay hadduu kici waayena biyo ku saydhay waa qoys isu kaalmaysanaya khayrkii taacad calashaani dumarka keliya meehe caruurta wixii xamili karoo dhan in laga qaybgeliyo oo cibaadada loo kiciyo hadyigii nebigeennu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayqada ahlah arrinta saddexaadii shadda mi'zarah guntiguu adkaysan jiray culimmada waxay ku fasireen dumarka iyo gogoshooduu ka fogaan jiray galmaduu ka fogaan jiray 10 beri laanna ictikaaf buu geli jiray ictikaaf iyo dumarna isma laha ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذو روح مربع اعتكاف سيه دمر ليسما يقانو سيداس درادة دمر كوا كفوغان شري سنة دي سيكم إذا صلوات ربي والسلام عليه طبعا كدن بهدي سوقشو إنو نولشا دان انتو كدح بحو ومساجد كدح دي ستين غير كدلستو هالكا إنو قالو وإنو حول مهم أصاب بحمو يأوصن بحن حرير كالربي علاقات كان ارتباطات كان حرير كان مشاغل الدنيا ذا وصوحره لأن مدة كوبا يدون يا النبي صلوات ربي وسلام عليه قلبي سو إنه حرير كربي أتكايو ساسترادت باعتكافي جري صلوات ربي وسلام عليه إلى أنتو كجيريون ينو اعتكافي مدينة مركو تجي صون كاللجوة تبيي لقب بالله إلى جيردي سي نبي اعتكاف كما تجين صلوات ربي وسلام عليه
kadibna dumarkiisii iyo xaasaskiisii iyo saxaabadiisii baa ictikaafkii qaatay oo ictikaafi jiray nebi maxamed gadaashii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lama hayo isagoo ictikaafka ka tegey ramadaanka ilaa hal sano oo nebigu sal alla alay wasalam intuu masaajidka dhexdiisa teendho ka dhistay teendhadii markuu hagaajistay ayay caaisha idan weydiisatay rasuulka ilaahi ii idan anigana agtaada inaan mid ka dhisto waa uu idmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xafsa waxay ku tiri caaisha anigana nebiga ii weydii way u weydiisay waa u idmay iyaduna agtiisa ka dhisatay zaynab baa ka war heshay markaas iyaduna agtooda ka dhisatay nebigu meeshii wuxuu ka soo baxay isagoo meeshan teendhooyin dhooban yihiin mid xag ka dhisan waa fahmay nebigu sal alla alay wasalam albira aradna buu nebigu sal alla alay wasalam ma wanaag bay u jeedaan waa dumar isu masayrsan ma wanaag bay u jeedaan bay idinla tahay fujiya buu nebigu sal alla alay wasalam teendhadayda fujiya waa ka tegey ictikaafkii ayaguna guryahoodii bay ku kala noqdeen haddiiba nebiga meeshii ka kaxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanadkaasi waa ka tegey ictikaafka 10 dambe laakiin muxuu sameeyey saa kagama tegin 10 beriye bisha shawaal u horeysuu ku bedeshay oo nebigu ictikaafay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed xataa hadday duruuf mucayana dhaafiso nebigu sal alla alay wasalam waa soo bedelkeedu la imaan jiray ahmiyadda ay leedahay ictikaafka iyo sunnadaasi qiimaha ay ku fadhido ayaad garanaysaa inuusan nebigu si fudud uga tegi jirin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bal waxaa sugan sanadka uu geeriyoon doono nebigu sal alla alayh wasalam 20 beri buu ictikaafay bedelkii 10 beri waxay tilmaamaysaa ruuxa markii da'diisu ay korodho oo xagga qabriga u sii dhowaado inuu camalka siyaadiyo oo wax ku daro oo intii hore uusan ku ekaynin waa ka rabbigii tabaaraka wa tacaala ku yidhi idaa jaa nasrullahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba haddii xaaladaha calaamadahaasi yimaadaan ilaahay guul ku siiyo maka aad furato dadku diinta ay kooxkooxiyo ay guudo u soo galaan qabaa'il hal mar soo wada islaamaysa markaasi geeridaadii waa soo dhowaaday diyaar garow nebi maxamedow maxaan ku diyaar garoobaa tasbiixda iyo xamdiga iyo istighfaarta badi baa la leeyahay ruuxu markay geeridii soo dhowaato aakhiru cumri uu joogo waa inuu xagga aakharo u bato xagga qaabilo nebi maxamed sal alla alay wasalam marka sanadku geeriyoon doono 20 beri buu ictikaafay bedelkii 10 ictikaafkaasi marka hala ogaado oo ha lagu dadaalo muhiim ah masaajidun jaamica haddaad hesho waad ku ictikaafi kartaa salaadaha jumcada iyo jamaacaadka lagu tukado inkastoo 3 masjid ay sii fadli badan yihiin masjidul xaraamka iyo masjidka nabigeena madiina iyo masjidul aqsa ay sii fadli badan yihiin haddana masjid kastoo jaamica waa lagu ictikaafi karaa cala asaxiix alladii calayhi jamaahiiru ahli ilcilm waxaa kaleetoo lalayaal muhima 10 dambe acmaasha qaaliga ah mar walbana qaaliga ah laakiin 10 dambe qaaliga sii ah waa ducada iyo addoonku inuu isbihimbihiyo inuu rabbigii isu oohiyo inuu gacmaha u taagto inuu baryada badiyo sujuudda ku baryo taagnida ku baryo fadhiga ku baryo jiifka ku baryo maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala cibaadaadka loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a baryada bal nabigeenu sal alla alay wasalam cibaado oo dhan wuxuu ku koobay baryaduu ku koobay adducaa huwa alcibaada baryada iyada unbaa cibaado ah buu nabigu yuri sal alla alay wasalam iyada unbaa cibaado ah kullamaa addoonku baryadiisu badato ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka kale waa uga dhow yahay albaabada ilaahay garaac danahaaga u gudbiso duruufahaaga u sheego baahidaada sheego si tadaruc iyo isbihimbihin ku jirto u sheego caaisha umulmu'miniina radia allahu tacaala canhuma nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku tiri rasuulka ilaahayow haddaan waafaqo leylatulqadriga maxaan dhahaa nebigu sal alla alay wasalam salaatuka ma dhihin sadaqana uma tilmaamin qur-aan akhrisna uma tilmaamin kulligeed waa acmaal waaweyn laakiin nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam haddaad leylatulqadri waafaqdo hee maxaan dhahaa waxaad tidhaahdaa allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii allah waxaad tahay midka cafinta badan oo addoommadiisa saamaxa ee rabbiyow iska kay cafi ilaahuw isaamax oo dembigayga dhaaf oo ceebtayda astur oo cadaabiga ilaali saa u bari buu nebigu ku yidhi sal alla alay wasalam allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii
marka baryadu habeenadani waa cibaadaadka aadka weyn ba ka mid tahay waxaan meesha ku jira sidoo kale cibaadaadkii kale sadaqaadkii waa qaali quraanka akhriskiisii waa qaali cibaadaadkii kale la waday waa qaali laakiin wax weeye kuwan si gooni ah ay nusuustu u tilmaantay inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam mudnaan khaas siin jiray tobanka dambe aynu dadaalo oo aynu sahay qaadano oo aynu khatimkii khaatumada hagaajino biidnillaahi tabaaraka wa tacaala la'alla wa asa waxa dhici karaysa inay tahay tii kuugu dambeysay hoosta ka xariiq waxa dhici karaysa inay noqoto 10 bisha Ramadaanba Ilaahayna gaarsiiyo 10kii bisha Ramadaan ee kuugu dambeysay inay noqoto dhici karaysa hamogaanin hana nacasoobin yeena ka hoos bixin dadaal iyo جهدي بحي كان صحي قاضي بإذن الله تبارك وتعالى صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا